وورقة سيرة أو قرية الله ونحرسته كن سقال بقول سديدي لحدنكي محمد حاجي إبراهيم عقال مدحويني هوري سومالي لان يريد الوزاريه وجودا بدولدي رayidka ahayd ee jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ay ku socotay dalka Djibouti gaar ahaan Xasan Guuleed Abtidoon oo xilligaasi madax u ahaa mucaaradkii gobonimo doonka Djibouti markii dambana noqday madaxweynaha Djibouti waxa markaasi maamulayay gumeystihii Faransiiska oo aad uga feejignaa dhaqdhaqaaqa gobonimo doonka Soomaalida Djibouti Soomaalidii kale iyo dawladii jamhuuriyadda Soomaaliya February 1986 ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo u safrayay Yurub ayaa qorsheeyay inuu soo maro Faransiiska si uu madaxweynihii Faransiiska Charles de Gaulle ugala hadlo ayaha Djibouti ra'iisul wasaare Cigaal waxa uu warqad u diray Xasan Guuleed Abtidoon oo madax u ahaa mucaaradkii gobonimo doonka Djibouti si uu mowqifkiisa u ogaado ka hor inta uusan Maars 1986 kala hadal arinta mucaaradka Djibouti madaxweynaha Faransiiska ma sahlanayn in warqadda uu qoray Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal la gaarsiiyo Djibouti waayo Faransiisku si feejigan ayuu u baari jiray dadka Soomaaliyeed ee Djibouti galaya sidoo kale sirdoonka Faransiisku waxa ay si dhow indhaha ugu hayeen xarakaadka Xasan Guuleed oo inta badan ku sugnaa magaalada Carta ra'iisul wasaare Cigaal waxa uu warqadaasi u xil saaray Allah u naxariistay General Jaamac Maxamed Qalib oo markaasi ahaa taliyaha booliiska ee waqooyi waa kuma General Jaamac sareegaas Jaamac Maxamed Qalib Jaamac yare waxa uu ahaa nin miisaan weyn ku lahaa ciidanka xoogga iyo siyaasadda Soomaalida laga soo bilaabo xornimadii ka hor ilaa 1984 oo uu saluugay taliskii uu ka tirsanaa wuxuu noqday taliyihii booliiska gobolada waqooyi taliyihii guud ee ciidanka booliiska taliyihii ugu horeeyay ee sirdoonka jamhuuriyadda Soomaaliya ee NSS isagoo markii dambe u leexday dhanka siyaasadda dhowr jeerna wasiirro kala duwan ka noqday dawladda kacaanka General Jaamac ayaa bogog ka mid ah boggiisa taariikhda Soomaalida waxa uu ku qoray warqadaasi sida uu ku gaarsiiyay Xasan Guuleed waxaana uu yiri February 1986 ayaa maalin dhambaal ka yimid Muqdisho waxa aan ka dhaxelay warqad gal ku jirta oo ay ciwaankeedu yahay Jamhuuriyadda Soomaaliya kuna socotay Xasan Guuleed Abtidoon waxaana warqadaasi ku lifaaqnayd warqad yar oo aniga igu socotay oo ay ku qoran tahay waxaad u xil saaran tahay inaad warqadaasi gaarsiiso Xasan Guuleed dhaqsana jawaab uga keentid ka hor inta aan wasiirka koobaad ee Soomaaliya u safrin dalalka Yurub arrintaasi waxa ay ugu noqotay xil culus warqaduna sida ay u qorneyd laguma galin karin Djibouti haddii warqad ciwaankeedu yahay dawladda Soomaaliya laga helo Xasan Guuleed ama lagu arko waxa uu kala kulmayay dhibaato weyn waxa aan go'aansaday in warqadaasi aan kaba hoostood geliyo yaan ku aamiri karaa tolida kabaha aan gelin doono warqadda ayaan isweydiiyay kaba tolo kasta kuma aamiri karo oo waxaan ogaay inay jiraan basaasiin badan oo Faransiis ah oo dalka ku sugan waxa jirtay xarun dadka naafada ah lagu xanaaneeyo laguna bari jiray tolida kabaha harqaanka iyo waxyaabaha la midka ah xaruntan oo ay lahayd hay'adda Safety Children waxa maamula ka ahaa saaxiibka Ismaaciil Xaaji oo aan aad isugu dhaweyn isaga ayaan u sheegay wixii aan rabay waxaan uu ii faray inaan u keeno qiyaasta kabaha aan doonayo isaguna waxa uu ii ballan qaaday inuu u dhiibi doono nin aamin ah oo kabahaasi si wanaagsan u tola tala ayaa naftayda kula noqday oo haddana waxaan isweydiiyay warqadaasi yaa qaadi kara oo aad kabaha u tashaa waxaan raadiyay Ciise Gaboobe oo Djiboutian ahaa oo joogtana ugu safri jiray Djibouti wuxuuna iga aqbalay inuu warqadaasi qaado tolmadii kabaha markii ay ku soo dhamaatay maalin gudaheed ayaa Ismaaciil iyo ninkii tolay kabaha waxay igu yimaadeen guriga goor gabaldhac ahayd si uusan kabatoluhu u shakiin Ismaaciil ayaa waxa uu ku yiri kabatalaha nin Jaamac abtigiis ah ayaa waxa haya cudur la garan waayay oo waxa Jaamac lagula taliyay in ninkaasi xanuunsanaya uu u qoro xirsi xidh ama qardaas aanu ogeyn oo sidaasi ayaa kabta loo gelinaya farsamayaqaankii ayaa warqadda geliyay meeshii banaaneed waxaana uu ku talay hortayada kadib markii ay shaqadaasi dhamaatay gurigayga ayaan keenay Ciise oo ahaa ninkii aan kabaha u dhiibi doono kabihii ayaan ku tijaabiyay si fiican ayayna u leekaadeen waxaan markan qorsheynay inaan Djibouti u baxno nin ganacsade ahaa ayaan baabuur Land Rover ahaa ka soo qaatay oo ma rabin in Ciise baabuur booliis lagu arko isla aroortii ayaa Ciise safray aniguna waa aan daba galay aniga oo wali kabihii sida xuduudda Lowyacado markii aan ku dhaweyn ayaan dhaafay waxaan ku sii sugay dabaqa sare ee saldhigga booliiska Lowyacado markii uu yimid ayaan kabihii siiyay waxaan tusay meesha ay dunta kaga tolayd oo mid lagu sari karayay marka la doonayo in warqadda laga soo saaro Ciise waxa uu igula ballamay in muddo 3 bari ah gudahood uu ku soo noqonayo markii 3 bari la dhaafay walina aanu iman ayaan aad u walwalay oo waxa aan ka baqay in Ciise iyo warqadiiba ay wax ku dhaceen intii aan sugayay soo noqodkii Ciise iyo jawaabtii Xasan Guuleed waxaan maalintii isku mashquulin jiray inaan ugaarsi tago waayo shaki ayay dhalin karaysay in mas'uul aniga oo kale ihi oo 5 bari Lowyacado iska fadhiyo baabuurtu waxa ay Djibouti ka iman jirtay galabtii
aniguna maalin walba goortaasi waxa aan diyaar ku ahaan jiray guriga saldhigga Looyacaddo. nasiib wanaag galabtii maalintii shanaad ayaa askari igu yimid dabaqa sare. wuxuu igu yidhi waxa ku doonaya in la yiraahdo Ciise. waxaan ku yidhi soo daa. Ciise oo ku faraxsan hawsha qiimaha lahayd ee uu soo qabtay ayaa markii uu yimid waxa uu ku dhawaaqay waa tan jawaabtii. wuxuuna bilaabay inuu warqadda ka soo saaro halkii lagu turay tii hore. sidaasi ayay warqaddii ku gaadhay hogaankii mucaaradka Jabuuti ee Xasan. aniguna jawaabtii ayaan gaadhsiiyey Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. sanad kadib iyada oo doorasho baarlamaan ay ka dhacayso Jabuuti ayaa dawladda Soomaaliya waxa ay doontay inay lacag u dirto Xasan Guuleed. habeen aniga oo dubnad ku ciyaaraya naadiga booliiska ee Hargeysa ayaa layga yeedhay isgaarsiinta taliska booliiska Muqdisho. waxaana laygu yidhi bari subax diyaarad ayaa Boorama kuugu imanaysa ee kuwa bariiso. sidii ayaan yeelay. waxaa timid diyaaradii oo uu la socday Daahir Xaaji Cismaan oo ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda arrimaha gudaha. wuxuu siday boorso ay lacag ka buuxdo oo loogu talagalay in la gaarsiiyo Xasan Guuleed. ra'iisul wasaare Cigaal oo aan ogeyn sidii aan warqadii hore ku gaarsiiyey Xasan Guuleed ayaa Daahir soo faray. jaamac ayaa yaqaana meesha loo marin doono Xasan Guuleed ee lacagtaasi ha gaarsiiyo. waxaana u sheegay agaasimaha meeshii aan warqadda marsiiyey shantad lacag ah ma marsiin karo. anigoo aan u sheegin sidii aan u sameeyey Looyacaddo ayaan wada tagnay annagoo lacagtii wadanna. waxaanu joognay dhowr bari. lacagtii waa aan gelin kar weynay Jabuuti oo Hargeysa ayaan kula soo noqonnay. kadibna Daahir ayaa lacagtii Muqdisho ula sii dhoofay. haddii ay goor hore lacagtaasi keeni lahaayeen ganacsatada Soomaalida ee Jabuuti midkood ayaan lacagtaasi u dhiibi lahayn. kadibna inta ay ku ganacsadaan ayay Xasan Guuleed lacagtaasi ka siin lahaayeen dalka Jabuuti. sidaasi oo kale ayaan samaynay mar ay dawladda Soomaaliya lacag u diraysay xisbiga. waxaan lacagta u dhiibnay Maxamed Caraale oo loo kaga iibsaday Hargeysa. xisbigeena lacagtii qiimaheeda ku siiyey Jabuuti. waa mid ka mid ah sheekooyinka xiisaha leh ee ku qoran buugga taariikhda Soomaalida ee uu qoray Allah ha u naxariistee Sarreeye Gaas Jaamac Maxamed Qaalib Jaamac Yare.